Waxaa maanta mucaashaqiinta kubadda cagta taageerta gaar ahaan kuwa Soomaalida ay isha ku hayaan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya halkaas oo ay ka qabsoomayso ciyaarta finalaha kama dambaysta tartanka xiisaha badan ee Sekafa. Ciyaartoyda da'doodu ay ka hooseyso 17 jirada isla markaana ciyaar xiiso badan lagu wado inay ku dhaxmarto xulalka qaranka Soomaaliya iyo South Sudan. Xulka qarankeena Ocean Stars ayaa sanadkan soo bandhigaya ciyaar loo riyaaqo waxaana markaasi guul muhiim ah ay ka gaareen dhigooda Uganda ciyaar gool kulaadyo ku soo dhamaatay. Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda mucaashaqiinta isboortiga ayaa ku sii qulqulaya gudaha dalkaasi Itoobiya si ay qayb kaga noqdaan xulka qaranka Soomaaliya in ay u taageeraan ciyaarta finalaha taasoo lagu wado in maanta ay ka qabsanto magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Xulka qaranka Soomaaliya ayaa la ciyaaray xulalka Itoobiya, Tanzania iyo Uganda iyagoona markaasi soo bandhigay kubad aad iyo aad loogu riyaaqo. Wiilasha Ocean Stars ayaa la rajeynayaa in sanadkan ay wax badan ka bedelaan marka la eego ciyaaraha iyagoona rajo weyn ka qaba marka la eego ku guuleysiga tartanka xiisaha badan ee Sekafa Under 17 ciyaartoyda da'doodu ay ka hooseyso 17 jirada. Sanadii 2018 ayaa ahayd markay soo tiigsadeen wareegga finalaha tartankan iyadoona ay guuldaro kala kulmeen wiilasha xulkeena qaranka Soomaaliya dhigooda Tanzania, balse maanta ayay rajeynayaan in markaasi ay guul ka gaaraan South Sudan iyagoo markaa koobka wadana ay markaa ka soo dejiyaan garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah madaxda isboortiga ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay ciyaarahan waxaana ay taageero u muujiyeen ciyaartoyda xulka qaranka iyagoona ku dhiirigeliyay in wiilashu sanadkan ay diyaar u yihiin in ay markaasi ciyaaraha wacdara ka dhigaan. Ciyaaryahan Cabdi Xafiid ayaa lafdhabar u ah xulka qarankeena Soomaaliya isagoona markaasi 2 gool ka dhaliyay tartankan waana mid ka mid ah xidigaha sanadkan wiilasha Ocean Stars ay ku shartagayaan isla markaana ay doonayaan in markaasi koobka uu soo gacan geliyo. Sidoo kale golayaha xulka qaranka Soomaaliya Marshall ayaa isaguna bandhig cajiib ah sameeyay kulankii ugu dambeeyay waxa uu markaasi rigoorada ugu dambeysay uu dhaliyay xulka qaranka taasi oo sahashay in wiilasha Ocean Stars ay markaas soo tiigsadaan finalaha tartanka xiisaha badan ee Sekafa Under 17 waxaana ay maanta wajihi doonaan xulka qaranka South Sudan kuwaasoo iyaguna ka soo adkaaday wiilasha Tanzania. Maxaa u rajaynaysaa adigu xulka qaranka Soomaaliya?